igala wareeg baabuurtii kii labaadna waa ka kii saddexaadna waa ka wixii baabuurta haddaad fiirsateen ka maqan iyo wixii lagala degay aniga wasiirka ah ballan qaadaya haddaan hortiina ku bixinaya diyaar baan u ahay beeldaajiyaha iyo wasiirka iyo odayaasha idafacdo halkan jooga waxaan uga mahad celinaynaa dhammaan sidii nolol dhaqmay oo quruxda badnayd oo wanaagsanayd oo dadkan deegaankan jooga Farjanno iyo maaragtay odayaasha idafaclaba ay nolol dhaqmeen waxaan u taagannahay gawaaridii lagu qabsaday deegaanka Farjanno inaanu ku wareejino dadkii hantidaas lahaa ama watay annaga oo u marnay hawl aad iyo aad u daba dheer oo aan u kala harin isim iyo oday iyo dawli iyo dhalinyaro iyo nin garbood haddaanu nahay beesha Muuse Noolays oo idinfacle uma aanu kala harin iskumana aanu ladin haatan waxay naga taagan tahay inay baabuurtii wadada qaadaan oo aan sii deyno iridooda laga wareego Soomaaliya intay burburka ahayd nin reerkaan oo gaari meel ku haysta cid isu sheegtay ma jirto waxay ahayd wax kalifo yimid oo ninka lagu kalifay ninku nin injineer ahaa nin farsamo yaqaan ahaa wuxuu yiri waxbaan halkaas inta aaday baan rag waxa u sameeyay qalabkii haddaan sameeyana lacagteedii baa la ii diiday muddo wareegayay muddo waxa weeye hadba qolo u tagayay ka bacdina wuxuu yiri aniga waaba la soo canaado waa la soo dhibay oo waa la soo ceyrsaday xataa arrinkaas waxaan rabnaa sida ugu hufan tolkii aanu wax naga dhaxeeyeen oo ninkaas wax ku sheeganayay sida ugu hufan oo ugu cadaaladsan oo ugu nadiifsan inay ninkaas xuquuqdiisii ama ku keenaan ama wada sharciga ku anfiyaan beeshan haddaad magaceeda lidin sheego Muuse Noolays waxay hadday dawlad ku jidhay hadday nabadoon lahayd hadday wax garad lahayd waxay ku dadaaleen baabuurtaas sidii nabadgelyadooda iyo raggaas loo qaban lahaa ilaahay maanta waxay soo gaadhay baabuurtii oo la hayo raggii oo nabdoon wareejin la wareejinayo bay maanta soo gaadh taas intaasaan kaga tegayaa waxaan ku darayaa beesha kale oo ninkaasi u sheeganaya Yaquub Cali Xarbi wax u sheeganayo inay iyaguna sidaas si la mid ah u dadaalaan hawshaas waxa iska kaashaday hadday dhacday waxa dhacay baabuurtaas deegaanka Farjanno ku dhacay dad deegaanka ka soo jeeda oo baabuurtuna waxay ku socotay degmada Caabud Waaq ee gobolka Galgaduud maamulka Galmudug dadka deegaankan dad deegaankan ka soo jeeda baa tabasho ku qabay muddo kadib iyo wada hadal kadib arrintii waa la galay waxaana galay odayaasha iyo waxgaradka deegaankan ka soo jeeda khaasatan beesha Muuse Noolays idinfacle oo isma iyo odayaalba isugu jira sidoo kale waxa arrinta qayb weyn ka qaatay iyo door muhiim ah saakana aan rabnaa annagoo beesha Muuse Noolays odayaasheeda iyo maamulka degsimada Farjanno aan ku wareejinaynaa furayaashii iyo gawaaridii ku wareejinaynaa wasiir ku-xigeenka duulista hawada iyo garoomada Puntland Cabdirashiid Sheekh Cali Dhagasayn ilaahay baan marka koowaad ugu mahad celinaynaa marka labaad waxa weeye intii ka shaqaysay odayaal iyo waxgarad iyo wasiirba waxa weeye waa mahadsantiin marka saddexaad waxaan u mahad celinayaa injineer Yaquub Cali Xarbi ilaahay khayr ha siiyo ilaahay ha barakeeyo waana u ducaynay isagoo wixiisi waxa weeye aan la siinu tabalayay isagoo waxa weeye aan maaragtay helid iyo midna aan gacanta ku hayn naga aqbalay inuu noo sii daayo gaadiidkii annagoo ah beeshu ka dhashay aad iyo aad buu mahadsan yahay Yaquub Cali Xarbi wuxuuna noogu qorayaa baal dahab haddii ilaahay idmo waxaan aad iyo aad u codsanaynaa cidda injineerku wax ku tabalayo in waxa weeye loo hor keeno sharciga aad iyo aad baa u mahadsantiin intaasaan ku soo gabagabaylayaa haddaanu nahay beesha Muuse Noolaysna waa naga fasaxan yihiin baabuurta halkan waxaa garabkayga taagan wasiir ku-xigeenka duulista hawada iyo garoomada Cabdirashiid Sheekh Cali Dhagasayn
oo arrintan raggii fududeeyey odayaasha haddee beeshana ka mid ahaa oo odaynimana kaga shaqeeyey wasiirnimana uga shaqeeyey nabadoonnada aad u jeeddaan iyo in maqan dhallinyaro iyo waxgarad nin dibad jiriyo nin dal joogaaba waxay xoogga saareen in baabuurtaa la sii daayo waxaan caddaynayaa oo bayaaminayaa waxaan u mahad celinayaa intaana taa ka gudbin injineer yacquub cali xarbi oo ahaa ninka tabashada iyo dhibta baabuurta la qabtay xoolihiisii ka maqnaayeen haddana weli ay ka maqan yihiin haddana aqbalay qabiilka ka aqbalay isagoo aan hal shilin la siin loona soo qaadin ballanqaad meel saaranna aan la siin inuu tolku tala soo jeedintii ka aqbalay inuu ku wareejiyo baabuurta u dheeraaday ilaah baa mahad leh ilaahana kulmiyey ilaah noo suurtageliyey inaannu hawshii aanu ka shaqaynaynay ay guul ku dhammaato waxaannu rabnaa inaannu ku wareejinno wasiirka furayaashii baabuurta annagoo beelo aan cid kale nala jirin oo cid nagala shaqaysay oo kale jirin oon dawladi nagala shaqayn oo aan cid kale codsi noogu imaan beeshu isxilqaamkeedii iyo waxgaradkeedii iyo isimadeedii iyo wasiirkoodii oo wada jira hawsha ay dhammeeyeen waxaan ka midaysannahay wareejinta gawaaridaas dhammaan waxaan u mahad celinayaa in allaale iyo intii ka qayb qaadatay intii wakhti ku bixisay wakhtiga oo kulul awgiis dhammaan waxaan rabnaa inaan ku wareejinno furayaasha gawaarida wasiirku sidii ugu wareejiyo ciddii lahayd baabuurtaas aad iyo aad baan idiin salaamayaa dhammaantiin wakhtiga oo kulul salaam ka bacdi gaadiidka meeshaan idinka muuqda waa gaadiid ay leedahay beesha Mareexaan oo dhalinyaro maleeshiyaadii muddo hadda laga joogo 8 bari ay halkaan ku qabsadeen iyaga oo xaquuq u sheeganaya beeshaas dadaal badan ka bacdi waxaa lagu guulaystay in loo sii daayo beeshii iska lahayd maantana la isugu yimid wasiirka oo beesha ka soo jeeda iyagana aad baan ugu mahadnaqaynaa aad iyo aad baan u mahadsantihiin annagu insha Allah waxaan rajaynaynaa inaan ku wareejino iyaga oo nabdoon oo nabad qaba oo aan wax ka maqan la arag dadkii waxa ku sheeganayayna waxaan doonaynaa sidaas oo kale in loo qanciyo dhammaantii soo dhawaada waxaan halkaan mar kale si gaar uga mahad celinayaa ugaaskii beesha Sade oo arrintan door ka qaatay iyo beeldaaji Axmed Mataan Xasan dhammaantiin waxaan idin leeyahay aad iyo aad baa u mahadsantihiin injineer Yacquub Cali Xarbi oo dhibano u ahaa dhaqaale muddo ka maqnaay oo ka cabanayay una qabsaday deegaanka gaadiidkan runtiina aysan ahayn dad wax qabay dad duruuftu isku beegtay ay tahay isagana waxaan leeyahay xaqiisii Allah u soo sahlo cidday uga maqan tahayna oo wax ku leedahayna waxaan rajaynayaa inay u soo dadaalaan oo sharciga u hor yimaadaan oo wixii maaragtay uu ku tabanayo ay uga kiisbaxaan waxa weeye waa gaarigaas dabdamiska ما شاء الله iskarogada wasiir waa booyada guudana wasiir wata خير الله يجزاك dhammaan dadka halkaan jooga ehel iyo qaraabo waalid iyo wiil dhammaantiin salaan kadib waxaan mahad u celinayaa Allah subhanahu wa ta'ala ammaan dhammaanteed ilaahay baa iska leh isagaana u mahad celinaynaa ammaanta labaadna waxaan u celinayaa odayaasha nabadoonnada uqaasha waxgaradka dhalinyarada siyaasiyiinta beesha Muuse Noolays ee Digfacle ee Buurtinle iyo deegaankan Farjano oo iyagu ka shaqeeyay hawshan ilaa maalintii ay dhacday daqiiqadii baabuurta lagu qabsaday meeshan ilaa saacada oo hadda oo aniga la igu wareejiyay furayaasha ay kuwaas yihiin ilaa haddeer anigu 2 maalmood shalay iyo maanta joogay shalay iyo maanta shirar uma kala kicin ilaa xalay ilaa daqiiqad shir uma kala kicin intay seexdeen waa yaraayeen baan u maleynay sidaas ay odayaashu hawsha u wareejiyeen labada isina ay ugala hadleen hawsha oo ay iyaguna qaybtooda uga qaateen annaguna ka dawlad ahaan aanu inta ku jirnay golaha xukuumadda rag badan oo ka tirsan baa habeen iyo maalin soo hadda inta labadii maalmood aan joogay shalay iyo maanta daqiiqad walba ay soo wacayeen hawshii waa ku jirnaa baan lahaa odayaasha gacanta ku haya meel fiican bay maraysaa marka iyaguna waa mahadsan yihiin odayaashana mar labaad iyo mar saddexaad baan u mahadnaqayaa wiilashii dhalinyarada ahaa
oo hawshaan sameeyey oo baabuurtaan qabsadayna waxaan uga mahad celinayaa waxa ka dhaca baabuurta markii la qabsado in la farataysto taayirada laga furto hadduu wax saaran yahay lagala dego oo hadhow berri ay dhacdo baabuurtii inaan laga garnaqine wixii saarnaa iyo wixii laga farataystay laga garnaqo maanta waxaan ku faraxsanahay in waxoodii oo aan waxba la yeelin oo sidoodii ah oo waxba lagala degin oo baanad baa ugu yar aan laga qaadan inay nadiif ahaayeen wiilashu oo ay dad hawshu la gashay maahan sidoo kale ay gob ahaayeen iyadana markhaanti waxaa ka ah nimanka walaalaheenoo sade baa ka markhaanti furi doona anigu afkooda ku hadli maayo waxaan rabaa inaan soo dhoweeyo walaalahay oo ay ii yimaadaan oo aan baabuurta ku wareejiyo haddii alla idmo oo aan fasaxno sidai odayaashu u fasaxeen marka dhammaantood iyagoo jooga siday furaha iigu wareejiyeen waxaan rabaa iyagoo markhaanti ku ah inaan aniguna furaha ku wareejiyo weliba ninka ganacsadaha oo ugaaska wakiilka ka ah inaan gacantiisa ku wareejiyo saddexdii furoon ee abshir inaan ku wareejiyo igala wareeg baabuurtii kii labaadna waa kaa kii saddexaadna waa kaa wixii baabuurtaa haddaad fiirsateen ka maqan iyo wixii lagala degay aniga wasiirka ah waa ballan qaadaya haddaan hortiinna ku bixinaya diyaar baan u ahay waxaan rabaa ilaahay ka sokow inaan u mahad celiyo dhammaan odayaasha halkan jooga oo ugu horeeyo wasiirka duulista iyo garoommada Puntland wasiir Cabdirashiid iyo dhammaan dawladda Puntland iyo odayaasha halkan nala jooga Muuse Noolays waxaan rabnaa ilaahay subxaanahu wa tacaala halkan waxay ku dhacday qadartiisu inaan wax yar ku hakanno hakadkaasuna wax maaragtay ay ku talagaleen odayaasha idfacle iyo maaragtay waxgaradku ma ahayn wax ardaal sameeyay bay ahaayeen wax laga xallin karo oo aan idna u gudbin oo odayaasha idfacle iyo dhaqanka iyo midna aan u gudbinna way ahaayeen wixii sidaas ahaa halkoodii waxaa soo dhoweeyey beeldaajiyaha iyo wasiirka iyo odayaasha idfacle halkan jooga waxaan uga mahad celinaynaa dhammaan sidii nolola dhaqmay oo quruxda badnayd oo wanaagsanayd oo dadkan deegaankan jooga farjanno iyo maaragtay odayaasha idfaclaba ay noola dhaqmeen si wanaagsan oo qurux badan oo nasabnimo leh oo ehelnimo leh oo tulnimo leh wixii maaragtay halkaa ka dhacayna nala ka raaligeliyey tol baannu hellay waxaan sheeganaynaana ma jiraan waxaan naga baabi'iyey waa tolkii marreexaan waxaan ka codsanayaa haddii ilaahay idmo sida naloo wanaajiyey inaad nimanka idinla xisaabtamanhayana aad u wanaajisaan marreexaan baan intaan leeyahay